بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan kusoo khulaasayno kusoo ururinay oo si yaro kooban aan sheegi doonaa chapterkeeni lixaad ee anatomy physiology-ga. marka waa summary-geena oo khulaasadii weeyaan oo chapterkii buuggeena ugu qornaa ayaynu halkan kusoo yaro khulaasaynay oo in yaro muhiim aynu kasoo qaadanay. chapterka marka waa reproductive system marka oo noqonaya habdhiska taranka ee noolaha ama bani aadamka. marka laga hadlayo male-ka oo labka ah iyo female reproductive organs iyo xubnaha taranka ee dhadiga labadooduba work together si wada jir ay wada shaqeeyaan to produce si wada soo saaraan offspring ubad. si ubad u soo saaraan offspring waa ubad, yani si ubad u soo saaraan male-ka iyo female-ka labadoodu isu baahan yihiin. weliba intaa waxaa dheer, in addition intaa waxaa dheer in female reproductive organs xubnaha ee taranka iyo female-ka ama dhadigu contribute oo ka qayb qaato to sustaining the growth inuu sii wado korriinka of embryos and fetus. labaduba waa uurjiifun, ilmuhu waa intuu uurka ku jiro laakiin waxay ku kala duwan yihiin timeka iyo waqtiga. wixii 8 week ka horeeya ilaa 2 week ilaa 8 week baa la yidhahdaa waa embryo. 8 week wixii ka dambeeya ilaa inta ilmuhu ka dhalanayana waa fetus. marka embryoskaas iyo fetuskaas korriinkooda waxaa ka qayb qaata waa female-ka, waa ilmuhu xaguu ku dhex koraa. marka hore labadooda ha ka wada qayb qaataan ilmihii inuu abuurmo samaysmo, laakiin ilmuhu markuu samaysmo ilaahay abuuro makaanka ayuu ku abuurmaya ku samaysmaya. weli markuu makaanka ku samaysmo haddana makaanka ama ilmagaleenka ayaa dawta la ilmagaleenba la yidhi ilmagaleenka hooyadaa leh. marka ilmagaleenka ay shaqadu ay kasii soconaysa. marka waxa la yidhahdaa haddaynu haddana sexual reproduction ka qeexno, waxaa jira laba nooc oo reproduction ah, midna waxa la yidhahdaa sexual midna asexual. sexual haddaad maqasho sexual reproduction-ku waa taranka jinsiga, yani laba iyo dhadig baa isu baahan. haddaad maqasho asexual-na waxa weeye taran jinsi laba la yidhahdaa. marka sexual reproduction waxa la yidhahdaa waa process habka by which kaas organisms nooleyaashu produce ay usoo saaraan offspring ubad ay usoo saaraan. ubadka ay soo saarayaan marka ay ubadka soo saarayaan doonayaan in nooluhu ubadka soo saaro maxay sameeyaan? waxay sameeyaan germ cells, unugyada jinsiga oo la yidhaahdo gametes amba waxa la yidhahdaa sex cells. marka sex cells iyo gametes iyo germ cells intaasiba waa isku mid weeye xagga micnaha, isku wuxuun bay sheegayaan. marka kaasi waa sexual reproduction-ka iyo qeexitaankiisa iyo definition-kiisa ayuu noqonayaa. haddaba male-ka iyo female-ka wayna kasoo sheekeynay in labaduba ay ka qayb qaataan samaysanka ilmuhu samaysmayo. haddaba waxaan ku horeynaynaa qaybta male reproductive system-ka ayaynu ku horeynaynaa. male reproductive system-ku organs iyo xubno ayuu ka kooban yahay. xubnaha uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah oo ugu horeeya testiska oo xiniyihiya. sidoo kale wuxuu ka kooban yahay system of ducts, tuumbooyin ayaa male reproductive system ku leeyahay. tuumbooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah tuumbooyin la yidhaahdo epididymis ama epididymis. waa meesha lagu store gareeyo lagu kaydiyo allahumma salli ala kuna qaangaadhay spermku ama xawadu. waxaa jira vas deferensku iyaguna waa tuumbooyinka kasoo qaada xawada ama spermka epididymis halkii lagu kaydinayay. waxaa ku sii xiga ducts la yidhahdo ejaculatory ducts-kuna waa tuumbooyinka soo tuura. tuumbooyinka marka lasoo tuura ay soo marto xawadu ugu dambeyna urethra-na waa tuumbada dibadda xawada usoo saarta ama spermka dibadda usoo saarta. marka intaasoo system oo ducts ayuu ka kooban yahay. waxaa jira glands la yidhahdo accessory glands waa qanjiro iyaguna caawiya inta badan fluids iyo dareerayaal iyo dhareer bay soo daayaan. waxaa kamid ah qaar la yidhahdo seminal vesicles, waxaa kamid ah qaar prostate, waxaa kamid ah mid la yidhahdo bulbourethral glands. xagga dambe iyagana ku sharixi doona mid kasta waxa uu soo daayo. waxaa jira structure supporting structures baa kamid ah. structure taageera ah baa kamid ah. waxaa kamid ah scrotum oo dahaarka sare ee dahaara testiska iyo peniska waa xubinta taranka
ee meelka. Marka intaas ka kooban waa testiskii tuumbooyinka qanjidhada caawinaya ee fluidka soo deynaya iyo structuradaas supportingka ka gudub. halkan waxaynu sawirkan isu taaganaa qaybihii imkaan sheeganay. waxaa ka mid ahaa structurada aan sheegnay, testis baa ka mid ah. testis waa kuwa waa xiniintii. marka qofka dhinac baa laga sawiray, xiniinuhuna waa laba. xiniinta dahar sare leedahay, daharkaas sare leedahay ama galkaas sare leedahay waxa leedahay scrotum baa leedahay. scrotum baa leedahay, waa daharka sare leedahay. marka inta laga yimaado xiniinta halkaa dusheeda tuumbooyin laalaan baa ku yaala. tuumbooyinka laalaan markaa ku yaala waxa leedahay epididymis. epididymiskaasi waa kuwii imkaan sheegan lahayn waxa ku qaangaadha ama maturation-koodu ka dhaca spermka. spermka marka ay soo saaraan testisku ay halkaa ku qaangaadhaan. waxaa jira tuumbo epididymiska halkaa markuu yahay ka qaada oo xaggaa kor u baxda, halkaa aan raacinayo marka qalinka. kuwaana waxaa leedahay magaceedu waa kaas, waa vas deferens. vas deferens waa tuumbada qaadaysa spermka. tuumbadaasi markay spermka ay soo qaado ay soo wado ay xaggan timaado, waxaa halkaa ku yaala vesicles. vesicleska halkaa ku yaala ama kiishashkeeda halkaa ku yaala waxaa marka tuumbadiisa halkaa usoo maraysa iyadu way soo wadaysaa spermkii. halkaas soo marinaysaa, halkaas soo marinaysaa, halkaa aan joojin. marka halkaas soo marayso waxay ku soo dartaa, marka halkaas wax kaga soo dartaa. maxaa leedahay seminal vesicles. waa kuwa aan kuu sheegay marka kale waxay ka qayb qaataan fluids bay soo daayaan, fluids dareerayaal bay soo daayaan. sidaan usoo soconay halkaa imika bladder waa ku taala, kaadahaysti waa ku taala halkaa. halkaasi waa kaadahaysti, waa urinary bladder, waa kaadahaysti. marka kaadahaysti iyaduna kaadi marka soo dhacday kaadi halkan soo maraysaa. tuumbadii kaadida soo qaaday iyo tuumbadii spermka soo qaaday halkay isugu imanayaan? waxay isugu imanayaan qanjirka la yidhahdo prostate glandka dhexdiisa. prostate glandku waa shape-ka imika aan saa wareejiyey ee prostate gland. markii halkaas soo gaadhaan haddaba waxay noqonayaan tuumbo keliya. tuumbada keliya hadhowto lasoo wada raaciyaa spermka iyo urinta labaduba halkaas soo wada maraan. waay marka waxaad dhigaysaa qanjidhadii, waxaad dhigaysaa seminal vesicles, waxaad dhigaysaa prostate glandka, waxaad dhigaysaa. tii saddexaad wuxuu ahaa ka halkaa ku yaala waxa la yidhahdaa bulbourethral gland baa la yidhahdaa. halkan iminka accessory gland baa inoogu qoran, laakiin waa kii aan u bixinay bulbourethral gland. marka waddadaas ayay soo martaa. intaas soo sheegnay waa intii meesha aan ku sheegnay. structuradii supportingka aan sheeganay glandis peniskana ka mid ahaa oo xubinta taranka meelka ama labka. testiska aan galna haddaba. testisku male gonadska waxa weeyaan waa xubnaha taranka ugu muhiimsan meelka ama dhadiga. oo male gonadska ama xubnaha taranka meelku waa testiska. xabadda keliya waxa la yidhahdaa testis baa la yidhahdaa. marka jamca tahay halkaas waa e, marka xabadda keliya tahay halkaas i ah. i waxay ka kooban yihiin concept, waxay ka kooban yihiin mainly badanaaba highly coiled tubes, tuumbooyin aad u duuduuban, surrounded by ay ku hareeraysan yihiin several layers lakabyo dhowr ah of connective tissue oo tissue xidhiidhinaya. haddaba xididada waxyaabaha waxaa ka wadaa testiska xiniyaha waxaa ka mid ah waxyaabahan soo socda including the flow, waxyaabahana ku jira seminiferous tubules. seminiferous tubules waa tuumbooyin testiska ama xiniyaha ku dhex jira, waana meesha spermka lagu sameeyo, where the sperm is formed. waxaa jira qaar la yidhahdo Leydig cells oo unugyo weyn iyaguna ku dhex jira spermka, waxaa ka wadaa testiska ku dhex jira. iyaguna waxay soo saaraan hormoonka la yidhahdo testosterone. they produce testosterone. markay testosterone soo saaraan they are scattered, waxay ku dhex daadsan yihiin oo laga dhex helaa between the seminiferous tubules. tuumbooyinka xagga sare aan kusoo sheegnay spermka sameeya dhexdooda ayay ku daadsan yihiin Leydig cellsku. hormoonkaas labnimada ama yacni qofku markuu qaangaadho qaangaadhnimada muujinaya ayayna soo saaraan. waxaa jira unugyo la yidhahdo Sertoli cells. Sertoli cellsku iyagu waa support, waa taageero iyo protect. waxay ilaaliyaan the developing spermatogenic cells. unugyada spermka ah ee la sameynayo ayay ilaaliyaan oo protect gareeyaan. marka intan haddii lagu weydiiyo testisku maxaa gudaha ugu jira, waxaa ugu jira seminiferous tubules, waxaa ugu jira Leydig cells, waxaa ugu jira Sertoli cells. ductiskii uu kaale markaan sheegaynay, ductisku waxay ahaayeen tuumbooyin ama tubes ama ductis. marka tuumbooyinka ayaa iskala male reproductive system has the flowing ductis, tuumbooyinka soo socdulay. epididymiska waa nigii sawirka kusoo aragnay soo sheegnay shaqadooda maxay ahaayeen sperm complete their maturation. spermku wuxuu ku dhamaystaa qaangaadhnimadiisa
and become motile then sperm wuxuu noqonayaa mid soconaya wax kaan gaadhay leena vas deferens ku xilli oo tuumbada ka soo qaada are duct waa tuumbada that carry sperm ka soo qaada from the epididymis ka soo qaada ejaculatory duct ayaa jira ejaculatory duct waa maxay each vas deferens kasta oo ka imanaya labada epididymis ama labada xiniyood ka imanaya each vas deferens maadaama laba xiniyo ay jiraan xiniin kasta tuumbaa ka soo baxaysa marka vas deferens kasta or one from each epididymis kastaba labada epididymis ay ka imanayso extend around way so distant and behind waxaanay timaadaa urinary bladder dabadiisa ay timaadaa marka tuumbadaasi soo wareegtay urinary bladder dabadiisa ay timaado with the joints halkaas ay kaga xidhanto duct from the seminal physical iyadoo ku xidhmaysa duct ama tuubo ka imanaysa seminal physical marka loo yaqaan tusii fishkira ee ku soo darayay fluidka tuumbada hawada sidii forming waxay sameeyaan short ejaculatory duct tuumbo yar oo ah tuuraysa spermka sawirkan aad ku celiyo halka markaynu ka soo dhaqaaqnay vas deferens kaas oo ahaa kor buu soo baxay sawirka halka oo ka bladder ku soo kaday stibid halkaas ka soo galay halka markuu mariyay waxa soo baxay seminal physical kuna kaas oo ah oo ka sawirka tuumbada halka kaga soo daray labada hadda halkaas kaga soo darsamay waxay sameynayaan tuumbada yar baa la yiraahdaa ejaculatory duct one tire prostate gland ka dhexdiisa soo galaysa marka kuwaas maxay sameynayaan been yiri waxay sameynayaan short ejaculatory duct tuumbada ejaculatory duct ay sameynayaan marka ejaculatory duct yaa sameeyo waxa sameeya vas deferenska markuu ku soo xidhmo tuumbada yare uu leeyahay seminal vesicle urethra uu kaalay urethra waa tadawada u saaraysa spermka marka ejaculatory ductigu oo kiimkan sheeganaya opens into urethra ayuu u furan yahay urethra waa tuumbada ka wada dhaxaysa tuumo common waxay ka wada dhaxaysaa spermka iyo urine ama kaadida which is outlet tube taasoo ah tuumbo dibadda u saarta for both labadoodaba excretory system habdhiska qashin saarka oo kaadida bay saaraysa and the reproductive system marka reproductive system kana way ka shaqeysaa urethra excretory system kana way ka kaadina way saartaa spermkana way saartaa marka milkan joognay ka hadlana milka waaya excretory glands uu kaalay oo qanjidhada caawiyaasha qanjidhada caawiyaasha saddex qanjir bayn hore soo sheegnay two seminal vesicles iyo prostate gland iyo bulbourethral glands haddaba three sets saddex group oo laba oo six accessory glands ah produce waxay soo saaraan secretions that combine with sperm dareerayaal bay soo daayaan dareerayahaas oo ku darsama spermka soo sameeyo wax la yiraahdo semen marka fluidkan inta badan meelka ay soo saaraan dibadda soo baxa magaciisa semen baa la yiraahdaa semenku muxuu ka wada kooban yahay semenku wuxuu ka wada kooban yahay spermki plus secretionki secretionka isku daraa semen la yiraahdo semenku waa maxay the fluid baa dareera that's ejaculate dibadda loo soo tuuro haddaba two seminal vesicles ayaa ugu horeeya seminal vesicles intee leeg ka qayb qaataan volume-ka semenka waxay ka qayb qaataan contribute waxay ka qayb qaataan about 60% boqolkiiba 60 of the volume of semenka volume-kiisa ama muggiisa wuxuu ka kooban yahay mucus dareer wuxuu ka kooban yahay sugar fructose sonkorta fructose la yiraahdo wuxuu ku coagulate 18 enzymes iyo dheecaano ayaa ku jira iyo acid la yiraahdo ascorbic acid intaas oo shay ayaa ku wada jira prostate gland-kuna isagu wuxuu soo daayay its productgiisa wuxuu ku soo daayay directly si toos ah into the urethra toos ugu soo daayay maadaama isagu uu ahaa meeshii ay iskaga soo darsamayeen tuumbada ka timi bladderka iyo ka timi testiska ejaculatory ductigi marka wuxuu si toos ugu soo daayay urethra through several small ducts isagoo isticmaalaya tuumbooyin yaryar oo dhowr ah isaguna sidii leeg wuxuu ka kooban yahay anticoagulate enzymes dheecaano ayuu ka kooban yahay lid ku ah kuwii hore coagulating enzymeski uu soo deynay two seminal vesicles way and citrate iyo walax nutrient ah ama nafaqo ah oo spermka ku jirto citrate la bulbourethral gland-ku isaguna waa maxay isaguna waa laba are pair of small glands waa qanjidho laba oo yaryar along the urethra hay raacsan the prostate-kana way ka hooseeyaan before ejaculation kahor intaan spermka lasoo tuurin they secrete waxay soo daayaan clear mucus dheecaan
ama dareer يعني biyo oo clear ah nadiif ah that neutralizes wuxuu neutralization ku sameeyaa any acidic urine يعني ICD urintii waxaan tumbadan urethra waxa soo wada mara kaadida iyo spermka ama semenka markii kaadidu soo marto meesha ICD bay kaga tagaysaa ICD ay meesha kaadidu kaga tagtay ka hor inta aan semenka la soo marinin bulbourethral gland ayaa mucus ka yar ku sii daaya mucuskaas markaa wuxuu sameeyaa ICD ay kaadidu kaga tagtay meesha ka nadiifinaya marka wuxuu ku sameeyaa neutralization any acidic urine يعني ICD urine lahayd remaining ku harsanay in the urethra ku harsanay saas meeshii lagu nadiifinayo kaas wuxuu ahaa male-kii xagga waxa ku gelnaa female reproductive system-kii waxa ku eegana marka organism-ka female reproductive system-ka waxa ka mid ah ovaries-ka ka mid ah female gonads-ka loo yaqaan xagii hore male-ka maxaa gonads-ka aanu naqaanay male gonads testis-ka ahay waa marka kuwan waa ovaries-ku waa xisidayaasha waxa ka mid ah uterine tubes-ka ama oviducts-ka ama fallopian tube-ka saddex magac weyn waxa la uterine tube baa la yiraahdaa fallopian tube baa la yiraahdaa oviduct waa oo tumbada waxaan ka soo qaadnaa ovary-ga ama muxuu ahaayay egga soo qaada oo oviduct oo tumbada egga ama fallopian tube ama waxa ka mid ah xubnahaas female reproductive organs uterus-ka waxa ka mid ah vagina-hii oo marinka dhalmada ah waxa ka mid ah external organs-kana waa wax alaale wixii female-ku ay leeyihiin ee ka soo sareeya vagina-ha ama marinka dhalmada kuwaas magacooda loo yaqaan marka la isku daro vulva way mammary glands-ka waa unugyada caanaha soo saara ama qanjidhada naasaha ku yaala caanaha soo saara sidoo kale iyagana are considered waxa loo tixgeliyaa part of both the integumentary system dhinaca waxa lagaga daraa skin-ka wada skin-ka iyo maqaar baa ku dahaaran inay skin-ka ku jiraan dhinacna waxa lagaga daraa female reproductive system marka mammary glands-ka ama breasts-ka mar integumentary system-kana lagu daraa female reproductive system-kana lagu daraa reproductive system-ka lagu daray waxa weeyaan ilmaha yar marka uu soo dhasho oo ka qayb qaadanaya nuujintii ay ka qayb qaadanayaan waay marka qaarkoodna marka nuujintu socoto waxay diidaan bay ilmo inuu caloosha uu galo functions-ka hadaba female reproductive system shaqadiisu waa maxay mid kasta shaqo noocyo qabta female reproductive system-ku perform flowing functions shaqooyinkan uu qabtaa ovaries-ku waa maxay ovaries-ku waxay soo saaraan produce waxay soo saaraan secondary oocytes ama waxanta يعني stage labaad markay marayaan waa immature egg bay soo saaraan aan hormones iyo hormoono immature egg hadhowto mature ayaa laga dhigaya waa laqaan gaarsiinaya include waxa ka mid ah hormoonada female sex hormones-ka ka mid ah oo labadan hormoon progesterone iyo estrogen iyo hormoon la yiraahdo relaxin uterine tube waa maxay the sites waa meesha where fertilization occurs walka fertilization ka dhaco uterine tube ama fallopian tube ama oviduct waan soo sheegnay uterus-kuna waa maxay waa site waa meesha of development of the fetus ilmuhu horumarka ku sameeyo ilmuhu ku koray yani during pregnancy markii gabadhu xaamilada tahay vagina-huna waa maxay receives wuxuu helaa penis xubinta taranka emailka ama labka during sexual intercourse xilliga galmada and is a passage waana dariiqa childbirth ilmuhu uu ka soo maro waa ka afraad marka vagina marinka dhalmada uu noqonaya mammary glands-ku waa ka shanaad weeyaan number 5 halkaasi waa mammary glands-ku waa naasihii weeyaan ama qanjidhada caanaha soo saarayay synthesize waxay sameeyaan secrete soo daayeen and inject soo turaan milk caanaha for nourishment si loogu nafaqeeyo oo cunto ahaan ugu isticmaalo of the newborn ilmuhu markuu dhasho marka shanta shaqadood mid kastaba waa ka hadda kuwa halkan ugu yaala wala sawirka female-ka aynu eegno sida loo fahanto ovary-gan iyo uterine tube-kan iyo uterus-kan iyo vagina halkay ku yaalaan marka qoraalka imikaanu ka soo baxnay hadhowtu waad isla dhegeysan doontaa iyo sawirkan ovaries-ku waa laba oo kuwa kaas iyo kaa weeyaan labada ovary fallopian tube-ka ku sheegaya waa tumbadan oviduct ama xaggan ama tan haato ama tan haate waa taa tumbada weeyaan tumbada saa soo laaban marka halkan marka waxanta laga soo tuuro iyo tumbadana la soo raaciya waxa la fallopian tube ama uterine tube ama waxa oviduct inta badan halkan uu ka dhaca fertilization meesha fertilization ka dhaco halkan calaamadiye marka saan keenay mariyay way halkan fertilization ka dhaca inta badan ambula marka soo dhaco tumbadaas egg ay soo qaado intana la imanaya intan dhexe marka ilaa halkaas intaasna waa uterus-ka waa magaleenka
لمن قيب ساقو سلسة فندس بقى لهذا قيب تندحين بوري بقى لهذا قيب تناصنح لهذا سيرفكس بقى المجنين كليب ساسو جدار له جدار كاير وجهه سيا وحلا endometrium كان دحية مرقة وحلا مايو ميتريم انت ميتريم كذا ما تقدر يسا مايو ميتريم وهي كسرنا وحلا بري والرعيين متريم تسرعين سوا بري متريم مكان غني بري متريم سلفكس كما قيمته ugu horeysa uterus marka intaas waa uteruska meeshii ilmuhu ku koriyey intan hoose waa vaginihii weeyaan ama marinkii dhalmada ilmuhu soo mariyay marinkii dhalmada marka khulaasadeeni iyo summary-geeni aan ku sameynay chapterka reproductive systemka waa chapter ballaaran laakiin intan waa summary yaro kooban aan soo khulaasaynay marka intaas noqon doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.